sidii 10 kaan oo kale loo sahlo kabacdina aan insha Allah ciid ku wada ciido khayr iyo barwaaqo ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa marka hore galmudug mudday soo martay shirkii Jabuuti iyo kii Muqdisho iyo kii halkaan ummadda Soomaaliyeed iyo Muslim iyo gaalo waxay lagu farxay bay ahayd lala yaabay bay ahayd mucjiso ay ahayd yani khayr badan oo u soo hoyday ummadda Soomaaliyeed baa cid walba niyeysatay warka ku laalaaban maayo mucjiso waxaa ah raggii odayaasha ahaa oo runtii halkaan nala joogay wax walbaba nala sameeyey maanta haddayna daba mareen oo cadaado ay tageen oo waxaan maqlay ay ku hadleen horta waa nasiib darro 10 bari 15 bari baana hadda xamar la soo joognay dib noo dhigeen la hadalay wax walba u sheegnay hadda nin meel oo cadahay meel ka madoway Soomaalidu tiraahdo waxaan jeclahay inaan u sheego walaalahay على قاعد محل حاشي ويان نمان يدير الدوري يوصل محل هرج نمان يفرد الدوري يوصل يدير هذا ماشي الملاحظة كتير وقلب عاصمة هذه وطن برلمان كذي وايد شوقان دولة دي وايد شوقتها وزيرنا دي وايد شوقان وحي عاد طبعا يساعدنا زي الشيخ شاكر وشاقينا روح الذي كداوين كريم haddii hawshiinu noqoto sidii 8 bilood ka hor dhacday oo kale oo yani markaasna waxay ahayd ahlu sunnah la doonay baa dagaalku ahaa haddana maxaa loo keenay way dagaalku waa wax iska cad oo loo ogyahay dibka iyo nacaybka yani diidada la diiday ahlu sunnah in carrada soo gasho weeye dhibaatada jirta wax kale maaha taasna waa ka gaashaaman doonaa galmudug haddaan nahay walaalaha sida sheekhu sheegay soo dhawaada haddayna soo dhawaanayna dee waa arrin maaragtay waa nasiib darrada ka mid tahay dadka reer cadaado shacabka reer cadaado walaalaha waa horeyna u wada hadalay wax walbana waa ku wada hadalay wax dhibaato naga dhexeeyaana ma jirin ballanqaadyadii hore aan ballan qaadnay waa ku taaganahay laakiin waxaan leeyahay ka ilaaliya cadaado inay noqoto god waraaboo laga soo duulo oo dadku dhibaata ay uga timaado dadkaa imaanhaya waa ogtihiin shabaabka 40 kilomitir bay idiin jiraan reer cadaado nimanka hadda imaanaya fidnada ka abuuraya tolowba shabaabkay soo dhaweynayaan masaajidka ixsaan idiin samaynaya anigu waxaan leeyahay waa horseed shabaab iska celiya dhulkiinana u diida dhibaatada iyo dagaalka iyo mashaakilka maalin walba lagu samaynayo ka diida oo iska bixiya dadkaas maaragtay fidnada idinku wada wax badan anugu sheegi maayo reer cadaado ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinayaa reer cadaadow waxa dhibka lagu wadaa waa idinka nimankan xamar xoogaa ku soo qaadi waayeen bishii September oo sanad hore bishii 9aad dibkii ka jiray waad ogeydeen iyo khatarta ay gashay cadaado ilaahay weynaa iyo maaragtay ay ku badbaaday amarkiisa mooye waxay gashay khatar maantana walaalayaal khatar kale ha horseedina waa bil Ramadaan ilaahay ka baqa isku laabta la hadla dadkan maaragtay idiin maanaya haddii ay wanaag wadaan soo dhaweey waa soo dhaweynayna haday qaswadayaal yihiin iska fogeey waxaan ku soo gunaanadayaa waxa muuqata oo marna wada soo gaartay in wasiirka arrimaha gudaha uu ka hadlay arrintan waxaan jeclahay inaan u toosiyo hadalka ahlu sunna iyo waxaan wada aragnay galmudug ahlu sunna iyo galmudug manhina anaga galmudug baan nahay waan wada aragnay wasiirka arrimaha gudaha waa ballanay 2 bari uu noo qabtay oo yiri war baan idinku keenay 2 bari waa maaragtay wuxuu uga soo celin annaguna waa iska soo dhaafnay arrinta
hadda uu ku dhex jirana waxaan u arkaa inay tahay faragelin qayaxan taas oo ah midii horay golaha CIC markii 15 bishii hore 16 uu go'aan ka soo saaray ahayd faragelinta in laga daayo dowlad goboleedyada waxaan u sheegaynaa oo ku wargelinaynaa dowladda federaalka inaysan faragelin ku samaynin halka kan galmudug waa xor baarlamaan bay leedahay wasiiray leedahay kabinet bay leedahay wax walba waxooda baanada iyada gaaris cidii ayadu shakhsiyaada oo banaanka istaagaysan ayada u taal anagu cid fogeyn weyna waa soo dhaweynaynaa kuwa hadda naga tagay halahay waa soo dhaweynaynaa kuwa kale imaanayna waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaan codsanaynaa dowladda federaalka sidii 8 bilood ka hor ay si qayaxan ay loo soo faragelisay inaysan mar labaad loo soo faragelin baan uga digaynaa waa uga digaynaa mar saddexaad baan uga digaynaa infadlakum waxaan idinka rajaynaynaa oo aan maaragtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha gaar ahaan in faragelinta haddii ay agtiina hadda ka jirtana aad naga daysaan haddii kalena aad ka digtoonaataan mar labaad inaan faragelin duban ugu samaysaan sidii 8 bilood ka hor dhacday oo kale aad iyo aad baad mahadsantihiin